xafladu way isku sidkan tahay mar baynu ku wada qabanay inagoo waqtiga beekhaaminayna midnimadana xoojinayna baan labadii agaasimo guud ee labadeena hay'adood ee hay'adda dhowrista tayada iyo hay'adda shaqaalaha dawladda aynu xafladoodii meel ku wada qabanay waynu soo wada dhaweynaynaa labada agaasime waanaynu wada sagooteynaa si wada jira waxaan leenahay anigoo ku hadlaya magaca hay'adda shaqaalaha dawladda magaca gudoomiyaha iyo magaca shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee halkan fadhiya waxaan soo dhaweynaynaa runtii horta agaasimaha cusub Mr. Caynaashe waxaad imanaysaa kulley hay'adaadii nin soo shaqeeyay baa tahay waxaan diyaar kula nahay soo dhaweyn iyo wixii hawle naga ka xirantay inaanu kula qabanno hay'adda shaqaaluhu waxay leedahay qorshayaal agaasimo guud qorshayaasha sanadlaha iyo bilaha insha Allah ta'ala baa lagu wareejin doonaa waana lagu la xisaabtami doonaa insha Allah hay'adda dhowrista tayaduna sidaas leeg baa qorshayaal leedahay adigana sidaas leeg baa lagu la xisaabtamayaa agaasimaha cusub ay nagu soo biiri doona waxaan leeyahay ku soo dhawow hay'adda shaqaalaha oo kugu soo dhaweynaa si kal iyo laab furan waa hay'adda shaqaalaha ee Soomaaliland waa meel runtii aan qabay inay diyaarsan tahay waa meel ka isku badan ka ballaaran wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waa meel laga maamulo shaqaalihii dalka oo dhan waa meel ay yaalaan siyaasadihii qaranka ee shaqaalaha lagu maamulayay marka dabcan waa halka excellence marka laga hadlayo wax la cabirayo anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda guud ahaan waxaan sabootin iyo amba bixin u sameeynaa marka hore agaasimihii guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda Xamse Suldaan Aadan oo ahaa runtii qof deganaansho iyo akhlaaq ku sifoobay intii uu nala shaqeynayna aanu ka aragnay runtii aanu marxaati uga nahay inuu ahaa qof wanaagsan oo suldaano ahaa aan inta ku koobay marka Xamse Suldaan Aadan waxaanu leenahay oo aan ereyo ku soo koobaya waxaan rajaynaynaa in ilaahay hay'adda aad tagtay ee qaranka u shaqeynaysa kaaga dhigo sidii hay'adda shaqaaluhu ku ahayd shaqaalaha halka joogana aad u ahaato sida aad noo ahayd intaasaan hadal ku soo koobaya oo imika uu galbinayno hay'adda shaqaalaha agaasimaha guud hay'adda shaqaalaha dawladda Xamse Suldaan Aadan Faarax isagana waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay soo dhawow baanu leenahay agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada ee noqon doona maanta wixii ka dambeeya run ahaantii Maxamed Geeta Caynaashe aniga isaga meesha ku soo dhaweeyay oo anigu almost ilaa 9 bilood baan ka ahaa gudoomiye ku xigeen si fiican baan u wada shaqeynay si komishineeradaba run ahaantii waa nin karti badan waa nin daacad ah kulli suldaanka magaciisa ka muuqato Suldaan Aadan waa la wada garanayaa waa nin suldaana anigu dardaaran u manjeedin lahaa labada agaasimo markay isbedelaan waxay u tagayaan dad cusub waxay u tagayaan waji cusub waxay u tagayaan ma taqaanaa shaqo cusub waxa loo baahan yahay foojignaan environment-gaas inaad la qabsataan environment-gaas inaad aad uga taxadirtaan hay'adda shaqaalihina waxa weeye waa tayadii shaqaalaha ee dadka shaqeynaya hay'adii kale ee tayada dhowrkuna waxa weeyaan dhowrista tayaduna waa wixii bini'aadanku isna isticmaalay marka bini'aadankii iyo wuxuu bini'aadanku isticmaalay marka labada agaasimo way naga waxaan shiri fursad fiican yihiinoo way naga nasiib badan yihiin maanta xagga kale markaan ka eego ninna humankii iyo barashadiisii iyo dabeecadihiisii wax badan uu soo hagaajiyay haddana muxuu u socdaa wixii ay isticmaalayeen ninna waxay isticmaalayeen buu soo hagaajiyay marka dadkii marka waxaan isleenahay hadhow in wax wanaagsan ka soo bixi doonaan agaasimayaasha halkan fadhiya waa laga warramay anagu xafiis ahaan runtii aad baan isugu dhownahay labada hay'adoodba oo hay'adda shaqaalaha dawladda waa hay'adda ugu badan ee aan wada shaqeeyo maadaama maamulka guud ee laga hadlaba ay shaqaaluhu runtii qayb ka yihiin shaqaaluhuna waa laba qaybood sala waa socotaan waa qayb laha shaqaalaha joogtada iyo qaybta laha shaqaalaha aan joogtada ahayn runtii dhammaan mas'uuliyiinta halkan fadhida waxay ka mid yihiin shaqaalaha joogtada ahayn bay ka mid yihiin inkastoo filaya iyagu nasiib xeer 07 iminka hay'adda shaqaaluhu ay wado ay ka mid noqon doonaan ba shaqaalaha inta badan laga yaabo in laga reebo marka runtii waxay noo muhiim ah shaqaalaha agaasimaha guud ugu horeeyo inay noqdaan dadka
laga dheehan karo maamul wanaagga. waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa horta hay'adda shaqaalaha dawladda waxaa la aasaasay sanadii 1993 iminka waa 27 sano oo dhow runtii waxay ka shaqaysaana waa daryeelka iyo shaqaalaysiinta tababarada xaqsiinta shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay ka kooban tahay 7 xafiis oo 7 agaasimo waaxeed iyo 5 xafiis runtii waa commission 5 xubnood ka kooban agaasimo guud iyo agaasimo waaxeedyo madax xafiisyo saasay u sii socotaa marka waxaan aad iyo aad u jecelahay shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda aan maanta ka sii socdo runtii inaan ahayn maalin tii ugu dambeysay ilaahaydankii waan wada joognaa shaqaduna kulli way iska soo keengalaysaa hay'adda tayada dhowrista tayadana runtii hawl weyn baa taala iyada lafteeda waxay daryeelaysaa idinku halkayna hay'adda shaqaalaha dadka daryeelaysay hay'adana waxay daryeelaysaa dadka beerkooda dhiigooda caafimaadkooda waxaasay daryeelaysaa runtii waxaan jecelahay quality control kana inuu noqdo isaguna mid aad u qiimo badan kulli dad fiican baa runtii jooga iyagana sida hay'adda shaqaalaha kale iyo dad la mid ah runtii oo aad u qiimo badan maanta inay ku taariikhaysan tahay muddo laga joogo 4 sano oo billa muddadaasi oo aan ka hawlgeliyay ahaana agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada waxaad ka garan kartaa markaa taariikhda dheer ee joogay meesha haddaan is iraahdo markaa bal afka kala fur oo waxyaalihii hay'adda u qabsoomay ka waran waxay noqon doontaa inaydan waqti fara badan xaggan ku qaadano waxaa yeelay hay'addu iyadoo baysa oo aas-aaskeedu markaasi u dhismayo ayaa la magacaabay hay'adda dhowrista tayada agaasimaha guud 4 sano ee bishala waxaan noo qabsoomay waxaan soo koobi karayna maaha waxyaalaha ugu muhiimsan qarankan uu ku taami karo lagu faani karo waxyaalaha ugu muhiimsan aan rabo inaan xagga ka sheego waxa koow ka ah ganaaxyada qoladii maaliyadda nala joogay aad bay qos lahaayeen lacagta faraha badan la soo hoynay shidaaladii iyo waxyaalahaas ay ka mid ka ahaayeen waxa ay kaga duwan tahay hay'adda dhowrista tayada hay'adda shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaalaha dawladda waxa la xiriirayaa waa shaqaale dawladeed ama shaqaalaha dawladda halada xeer mariyo oo aan shaxmarin iyo liiska saaridii in la shaqaaleysiyo waxyaalo noocaas ah laakiin saaxiibka Xamse waxaan oran lahaa waxa timid hay'ad ganacsato la dheel gareynayo waxaan filayaa in Xamse insha Allah uu heli doono shaqaale aad iyo aad 99% daacad ah dhalinyar ah aqoonyahan ah oo xaqiiqatan 4 sano uu joogay xafiiskaasi aad iyo aad macaamilkooda ugu fiicnaa oo aan wax xumaana lagu sheegi karin inuu la wareegi doono hadii Allah uu dilo kalaado maanta waxaynu halkan u joognaa soo dhaweyn iyo sagootin aynu labadaba duca ugu darno khaasatan anagu waxaanu sii sagootigeynaa ducana ugu daraynaa agaasimaha iyagii hore Maxamed Geedi Caynaanshe oo aanu soo wada shaqaynay muddo 2 sanadood iyo ilaa 7 bilood ah run ahaantiina waxyaabaha uu ka soo hadlay ee uu soo sheegayna aanu soo wada qabanay ilaahayna noo suurto geliyay halka hay'addu maraysana imaka waxa weeye hal meel leeyahay crossroads waa halkii hay'addu ay jaan qaadi lahayd 4 sanadood ee uu joogay agaasimuhuna run ahaantii wax badan buu qabtay wax badanna way noo qabsoomeen waxyaabo badan oo qabi ahina way jiraan oo aanu rajaynayno insha Allah Xamse Suldaan agaasimaha cusubna inuu halka ka sii wadi doono dardargelin cusub iyo dhiig cusub uu ku shubi doono hay'adda dhowrista tayada waxay ku shaqay